بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda Soomaaliyeed iyo magaca jaaliyadda SSC ee wadankan Denmark waxa aan dhambaal tacsiya u direynaa dhammaan beelihii ku dagaalamay gobolka Sool gaar ahaan koonfurtiisa intii dhimatay waxaanu leenahay Ilaahay ha u naxariisto inta noolna dhaawacana waxaanu leenahay Ilaahay caafimaadkooda ha u soo celiyo inta ka bacdi waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa dhammaan ergooyinkii soo ajiibay tacsida soo diray oo gartay in ay dadka dhex galaan ergooyinkaas oo ka kala yimi dhammaan geyga Soomaaliyeed gaar ahaanna gobolada SSC waxaanu leenahay hawshaasi waa hawl weyn waa hawl inagu soo noqnoqotay garaadadiina salaadiintiina cuqaashiinu waa inaydaan u kala kicin ilaa aydin arinta meel ku ogaataan waxa weeye dad fara badan baa inaga dhintay arintaasi waa arin aad u adag bay noqotay Soomaaliduna waxay tiraahdaa haddii gar aad aragto go'i weyday macnaheedu waxa weeye ama mid baa ku dheer ama mid baa ka dhiman arinta waa in la faruugaa waa in laga dhigaa jilib carro waa in dhuuxa iyo lafta la kala saaraa waa in go'aan adag laga soo saaraa qolyaha ay arintani xusaysona waxa aan leeyahay war waa inaydin aqliga isticmaashaan dagaal weligeed buu dhici jiray beelahana waa ka dhici jiray waa la heshiin jiray dagaal kuwan ka waaweyn baynu soo galay taariikhda qoraysa ka sheekaynaysa maxay ahayto artan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalayay garaad faarax dhay iyo kadhul kala macaana goob bay ahayd waa laga heshiiyay afxakame karkabadii oo ay iyo kulaylkii ka dambeeyay buu yiri Cali Yuusuf intuu ka guursaday kii kalena ka weyn u tumay karina waabay waa laga heshiiyay kalaamku lahaa ina galeyd ku hay gadaashi kaar kuba ma joogeen hadduu keeno tudidii balacad kaliya kuma jareen kii waa laga heshiiyay waxaan laga heshiin karin ma jirto hal la heshiiyay tasaddexaad waxaan iyagana u ogeysiinayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed maamulada hareeraha inaga xiga ama ha noqdeen Puntland ama Somaliland ha noqdeen inay waajibkooda ay halka ku leeyihiin gutaan waayo waa waajib saaran wala waliba haday tiraahdo dalkan anaga xukunna oo aanay soo faragelin waa xumaan marka waa in ay si qurux badan uga qayb qaataan haday ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha waayo dadkii waa ku cayroobay dad baa ku barakacay geedaha hoostooda la fadhiyaa waxay u baahan yihiin gargaar waa in gargaar degdega lala soo gaadha haddii kale xaaladdu waxay noqonaysaa gabaygii ahaa raage ogaase bawdada markii aan ka jabay boqonka taagiisa habeenkii way biran lahaa bahalkii dheeraayay ninkii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni raggii bacilaamo goortay dhammaan ugu dul ooyeysay bacan barana inay baga itiri beerka ka ogsooni marka arintaas ha loo dadaalo oo hal la galo oo dhaqaalaha lagu yimaado waa maamulada iyo dawladda dhinaca kale jaaliyadaha u dhashay goboladan SSC meel kasto ay joogaan gaar ahaan jaaliyadda Mareykanka joogta ee powerfulka ah ee halka degan iyo jaaliyadda Ingiriiska iyo intay caga ku xaadhaan ee Yurubtan ah kuwaas ugu xoog weyn waxaan rajaynaynaa in ay ka qayb qaataan oo waliba dhaqaale ahaan uga qayb qaataan si dadka maatada ah ee masaakiinta ah halka ku baaba'ay maxay ahayto xoolahoodii loogu soo celiyo guriyana maaragtay gaajada horta bal laga biyo gaajo iyo dayac iyo darxumo iyo dhaxan baa haysatay intaas aan ku soo gabagabeynaya hadalkaygii waxaan idin leeyahay maxay ahayto waa in la isku kalsoonaadaa oo la iscafiyaa haddaan la iscafiin wax adduunka hagaagaya ma jiro waxaan ku soo gabagabeynayaa qolyihiina SSC degan horena anigu waan u sheegay wallaahi haddii aydan tashan waxa iman doonta maalin la idin taliyo ragga aydan maanta leenaysaan rag baa booskooda soo gali doona wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh